بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد runtii senatarka aad baan ugu mahad celinaa senator Xuseen maxaa jira isaga lag jarar ahaa isaga ballanta lahaa aniga waa isoo afduubay le waa ikaalmay buu yiri ballantu ma ka warqabin marka macahadka Samadoon runtii fursad qaali ah oo macna leh oo u baahan maanta dastuurka Soomaaliya iyo dib u eegistiisa in dhalinyaro runtii nuxur ku jiro Soomaalinimo ee raba inay ogaadaan dastuurkooda maxaa yeelay anagu dad islaam ahaan nahay dhibaato dalkan dib weyn baa ka dhacay waa lees dilay ilaa hadda nagu socotaa waa la kala irdhoobay runtii markaad aragtaan dawladda kacaanka oo iyadu sidoo hadda uga soo sheekeeyay senatarka 69 ilaa 90 dalkan ka talinaysay oo laga yaabo badankiina inaydan aad uga warqabin markaad aflaamta daawataan Oktoobarta iyo diyaaradaha iyo dabaabaadka iyo ardayda iyo maxaa gobolada iyo ciidankii noo dhisnaa iyo inaad la yaabto tiraad war dalkan aaway hantidan xagee aaday oo aaway ummadan waxaan Soomaali qaar baa waxay ku leeyihiin waxaan Soomaali ma lahayn waa marka runtii dhalinyaradii dhalatay wixii ka dambeeyay halkan waxa laga yaabaa inaanay runtii aad uga warqabin xaaladihii dalkan uu soo maray maraaxil badan oo ilaa iyo 60kii markii xorriyadda aan qaadanay ilaa iyo maanta laakiin waxaan rabaa senatarka waxa ku jiray dastuurkan inuu soo maray 3 marxaladood marxalad waxay ahayd dastuur sameyn waa tii uu ka soo bilaabay 49kii ilaa uu maaragtay ku soo gaarsiiyay midkan hadda aan haysanay Agost 22keedii Agost 12keedii miya kowdeedii ay ergada 825 xubnood oo ay soo xuleen odayaasha dhaqanka aad ogtiin hadda base u ah siyaasadda Soomaalida dad ay soo xuleen oo haween ku jiro oo gender kala ilaaliye gabdho wiilal halka la isugu xareeyay oo iyaga gacanta u taageen xitaa laftirkooda comments badan bay qoreen oo yaalo oo dhahan ha lagu daro dastuurka oo runtii hadda looga faa'iideysanayo dib u eegistiisa waxaan rabaa marka kacaanka markii uu dalka la wareegay 69kii ee uu dastuurkii 60ka laalay macnaheedu muusan laaline waa wuxuu soo saaray article 1 waxa la yiraahdo oo 69kii ama warqadii kacaanka oo ilaa iyo 79kii sidoo sheegay lagu dhaqaayay dalka laakiin haddana wuxuu yiri shuruucdii dalka hore u jirtay haddii aanay kacaanka ka hor imaanin waa lagu dhaqmaya runtii waa wax ajiib ah wuxuu sharciga dalku dal shalay dhashay ma ahayn sharcigeena anfacaayo waa ka qaadanaynaa war macnaheedu hal baabiya dasbinka lagu rido muusan dhahin wuxuu danaha kacaanka wixii lagu dhaqmo warqadan baan ku qoreynaa laakiin wixii loo baahdo oo kale waa ka soo qaadanaynaa dasaatiirtii ka horreysay waxaan rabaa maanta runtii aniga kuma noqonayo wixii la soo maray macadkuna waxay la tahay maanta hore kama soo diyaarin kartiin oo runtii waxay u baahan tahay in baxthi iyo la soo sameeyo research iyo la soo akhriyo kulli dastuurkan waa kii la idinku dhaqaayay waaye dhalinyarada iyaga ugu muhiimsan in ay maaragtay dastuurkooda bartaan sharciga qodobka labaad ee dastuurka wuxuu leeyahay sharci lama soo saari karo oo diinta islaamka ka hor imaanay waa base waaye dastuurkeena waxa asal u ah shariicada islaamka ee maqaasideeda ayuu ku dhaqmayaa runtii dad badan waa nagu waxay la dastuur uma baanin waxaan ku dhaqmaynaa runtii dastuurka iyo quraanku waa isaga ah dastuurkii Ilaahay u soo dejiyay adduunyada laakiin xeerarka lagu dhaqmayo iyo sida aan maaragtay u sameeysanayno hawl maalmeedkeena iyo danaheena iyo dawladda loogu dhaqaayo iyo dadka inaan sameeysano ma diidayso diinta islaamka culumadana way naga warqabaan way nala joogaan waxaan rabaa marka runtii maraaxisha uu soo maray markii la ansixiyay Agost 1deeda 2012 oo lagu dhisay dawladda ku meel gaarka ka baxday madaxweyne Xasan Sheekh 4 sano waad aragteen waxa la dhisi waayay gudiyadii baa la dhisi waayay xitaa ka shaqeynay gudiga madaxa banaana ilaa wuxuu qaatay sanadkii 2014 oo ay waqtigu kaarsan yahay 2 sano markii la dhisay ka bacdi haddana waxa iska yimid caqabado
gudoomiye baa iscasile caasha geela baxday waa aad baad u maqlayseen kulay cidii xusuusato waa conflictyo badan dawlad goboleedyadu danooyin wax bay leeyihiin dalku dal hal meel laga maamuli karana ma sidii kacaanka dal oo maanta aad dhihi karto dad israbo oo maaragtay walaal ah oo ka fikiraya danta guud ee Soomaalinimadana meeshii ma taalo مثلا مرمر وايس قبسنا aniga senatorka xal anigu golaha shacabka aan ahay senatorkuna waa aqalka sare hadda waad aragteen options boo idin soo bandhigay baarlamaanka sagaalaad waxay dhaheen aqalkan haba laga takhaluso maxay baabirigaas ma jirin baarlamaan iyaga kaliya golaha shacabka kaliya jiray cid kale oo dhibaysa ma jirin annaga hadda waa dhihi weyn laga takhaluso maxay isagii baa soo taagan aad qof taagan ma dhigi kartaa waa ku dilay adiga waa dhibkana aysta ka mid waliba isaga iyo senator Cabdi Qaybdiido aad ogtihiin oo marmarka qaarkood laga cabsanayo marka runtii waxay ka mid tahay caqabaadkan ku muusan darin senatorka aqalka sare xitaa hanaanka ama habraaca loo marayo shuruucda xitaa waqti bay qaadanaysaa markuu laba aqal tahay oo intuu kan maro saddex akhrin maro akhrin kuwaad akhrin labaad dana loo gudbiyo kaas oo uu soo haysto wax ka soo bedelo kan lagu soo celiyo hal sharci meequu maraa procedure time meequu qaadana waa runtii wax aad u dhib badan waa dalkina waxa la yiri waa dal federaal ah oo waliba khasab ah federaal aynaan inagu ka tashanin dadkeena la weydiinin oo runtii keentay dadkii markii la isdilay oo xamar lagu kala tagay oo qolo walba ay meeshii qabiilkeedu jiray ay aaday qolo qabiilkeedii dawlad goboleed ku noqotay koonfur galbeed waa inkastoo anigu aan ka imid laftirkeyga haddana waa dad baa majority ka ah Puntland waa la yaqaanaa Budogaar u tumo waa iyadu waaba atooro waa waxay leedahay veto power oo marmar qaarkood federaalkaaba isku duleeyaba Jubbaland waa la mid Hirshabeelle galmudug ida kala taagan xitaa caqabaadka jiro annaga la tashiyadeena xitaa way saameysay maxay la dastuurka waxa la yiri dadka ha laga qayb galiyo waa runtii waxaan u qaybinay dad badan baa lala taliyay waan aragnay dhalinyaro haween civil society dadkii scholarska ahaa culumadii haddana saas ay tahay waxa la rabaa in inta dastuurka la akhriyo ereyo nuxur ah waxtar leh dastuurkan wax lagu in la keeno laakiin aragti iyo wax iska maartay waxa mataraay mujmal waxa rabo qofku inuu fakaro uu yiraahdo war article-kan sida aad u dhigteen maana saas ha laga dhigo inuu wixii ay noqdaan wax la taaban karo waxa ku jiro oo hadda runtii caqabaad kamid ah oo ay dawladda federaalka iyo dawladaha xubinta ka ah ay u baahan yihiin inay wada xaajood ka galaan awoodaha dawladda maalin wala isku qabsanaya imaaraadku taga abu madaxweyne maamul goboleed wixii saddex shidaal haliiqodo badda waa iibiyay boosaaso waxaan ka gaday DB Well war adigu see waa iniyo dalku ma adaa meesha ka ah wax dawladda federaalka ma oga ma ya dastuurkeyga iyo ogol aniga ilaa dastuurkaas laga dhameeyo aniga keyga ku sii dhaqma marka waa si xaraashana wixii inta noolahay ilaa bari laba oga waa caqabad waa awoodihi waa la isku haystaa yaa awood u leh dastuurku wuxuu qoraa article 54 afar awoodood buu dawladda federaalka siinaa wuxuu leeyahay difaaca iyo maali arrimaha ku saabsan jinsiyadda arrimaha dibadda iyo waxa senator article kale waa difaaca iyo arrimaha dibadda iyo lacagta ayuu afartaas awoodood baa iska la wole ilaah baa idinku dhaariyay dal dhan oo arrimihiisa laga hadlay ma afar awoodood inay dawladda federaalka yeelato inta kalena ay yeeshaan dawlad goboleed suurtagal miya wax runtii aad loola yaabay waa maanta marka anaga waa tagnay dawlad goboleedyada sida aan isu xilqaanay soo sheegay senatorka dastuurka wax badan baa kala hadalay madalaan leenahay dalkuna dhibka caqabaadka jiray kamid tahay in dhammaan siyaasi la wada noqdo in dhammaan dawlad goboleed xildhibaan waa ku wareernaada marmar waxaan leeyahay xildhibaan ka tahay adiga ka dawlad goboleedka miskan federaal wasiirana wasiir ka tahay adiga waxaan ahay wixii madaxan isku la jira marka waa loo baahan yahay in magacyo kale xitaa loo helo waa talooyinkan idinka rabna waa nimankan gobolada madaxweyne maan dhahaynaa madaxweyne miya maamul goboleedyada nimanka ka ah gatekeeperska ka ah taqaaniin oo akhyaarta waaweyn ah ma madaxweyne baarlamaankooda waa golo shacab waaye waa saaxiibadeen waay dad badan baan waxa ku jira xukuumadoodii
maalin walba waad maqlaysaan waxaa la isku haystaa markuu hadlayo wuxuu leeyahay dastuurkii bay u gafeen waxayna inaga ogeyn baa laga shaqaynaa dastuurkan waad aragtay waa la culeysiyey si uu u noqdo wax macno leh baa 9 hay-adood la isugu geeyey maxaa yeelay baarlamaankii oo 2 golo ka kooban guddigii madaxa bannaana wasaaradii waa ergo haddana la yidhi lagu daro dowlad goboleedyada iyagaa matalo aqalka sare haddana inay erga soo dirsadaan waa caqabaadka ka mid ah ee dhahan maya oo maxaad kuwan idinka aad soo doorateen oo baarlamaankiina soo diray oo iyaga idin matalo ayaaba ka mid ah baarlamaanka golaha shacabka waa 275 xildhibaan waa 5 xubnood buu leeyahay waa anaga waxaan dhahnaa shacabkan matala waana sax soo maaha iyagana waxay matalaan dowlad goboleedyada saaxiibkay iyo marka haddii iyagana la yidhi erga lagu sii daro oo la yidhi hala keeno 6 erga iyo 5 aqalka sare ah iyo 5 golaha shacabka iyo guddiga madaxa banaana iyo wasaaradii iyo kuwa kale oo hoos ku jiro oo waxa sii dheer intaas xukuumadda oo iyadana dana siyaasadeed leh waxa laga yaabaa in xafiiska prime ministerka uu guddi yaro ad hoc intuu u magacaabay iyaguna shaqo dastuur ay qorayaan baa dhici karto waa suuragal oo isaguna darooyin wax ka hadlayaan marka waxaan rabnaa runtii su'aalaha ayaa u baahan horta in maartay meelo focuska la saaro maxaa hadda waxaan soo ogaanay dastuur sameyntii iyo waxaan soo ogaanay hadda dastuur cusub ma qoraynay anaga midkaas 143 qodob ka kooban 15 cutub ah cutub walba ka hadlaaya wax maartay gaar ah sida uu senatorku sheegay cutubka koowaad oo mabaadiidii maartay principles ka hadlay kii labaad oo ka hadlay xuquuqdii maartay xuquuqaadka aadanaha waxa la yiraahdo iyo waxa qofku leeyahay waxa lagu leeyahay waajibaadkii ila qofka duu xuq yeesho waa in waajibna uu yeeshaa waxa kale oo uu ka hadlayaa federationkii wuxuu ka hadlayaa baarlamaankii wuxuu ka hadlayaa xukuumadii madaxweynihii dalka marka siyaasadiisii modality-ga maxaa yeelay baarlamaanka sagaalaad waad aragteen optionskiisa macna weyn bay ku dhisan yihiin marba waxay leeyihiin madaxweyne shacabka doorto oo aan baarlamaantari ahayn mar waxay leeyihiin maya waa inuu jira madaxweyne iyo baarlamaan awoodihii anaga marka hadda dib u eegis runtii wax weyn baa ka sameynay awoodaha iyo talooyinka weli way dhiman yihiin laakiin waxaan sameynay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo runtii awoodahoodu ay kala ilaa waa ogtihiin xilligii madaxweyne xasan sheekh ra'iisul wasaarihii saddexaad baa ayaa la sameeyay Soomaaliya 4 sano oo 3 ra'iisul wasaare isbedeshay qiyaasaban ninka ugu badan wasiirkii ugu badan wuxuu joogay 6 bilood qof muxuu ku qaban karaa ra'iisul wasaare hadduu baxo golihii wasiirada way baxayaan haddana dino dhismahoodu waxay qaadanayaan 2 bilood baarlamaankii waa ogtihiin mar aan heesi jirnay waa kulay waa la socoteen oo qaadi jirnay heesi Soomaaliya tooso iyo baarlamaan kala qaybsana shidooyinka siyaasadeed bay ka mid tahay oo aan xal loo hayn waxaan rabnaa marka macahadka runtii fursad macna weyn